أريا حادي تري ما بكون دورك النبوك حاد في رسالة ما تقول دورك هالسبيس daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films oo alabaad ka dhaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. Barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa aktarka reer India ee Aamir Khan 53 jirkan ayaa waxa uu ka mid yahay aktarada ugu caansan ee dunida ee kasoo jeeda dalkaasi Hindiya. Aktarkan ayaa muddaba waxa uu ololeeyay mashruuciisa la magac baxay Bani Foundation oo uu Aamir Khan ugu ololeynayay 3 sano ugu dambeysay biyaraanta ka jirta ee gudaha dalkaasi India gaar ahaan gobolka Maharashtra oo ay ku taal magaalada Mumbai oo xarun u ah shirkadaha filimada sameeya ee Bollywoodka loo yaqaano. Haddaba aktarkan ayaa waxa uu ka hadlay mar lagu eedeeyay in siyaasadda uu rabo inuu ku galo markii uu sameystay organization Bani Foundation oo uu rabo in ay helaan gobolka Maharashtra dadka ku nool biyo ku filan. Aamir Khan waa uu ka jawaabay su'aalahaasi isagoo ku sugnaa magaalada New Delhi ee dalkaasi India xaruntana waxa uu sheegay inuusan siyaasadda jeclayn markii ay siyaasadda noqotona in uu dhanka filimada kaga wanaagsan yahay wixii aan siyaasad ku qaban waayana waxa uu yiri waxay ila tahay inaan ku qaban karo dhanka filima sameynta waayo actor wanaagsan ayaan hay shaqadan waa shaqadeeda siyaasadda laakiin ilama ahan in aan ku soo gudbin karo buu yiri hanka iyo hamiga aan leeyahayna waxba kuma qaban karo laakiin midan ayaan aqaanaa ayada ayaana wax ku fahansiinaya. Waxa uu sheegay dibka markii uu yimaado oo uu shacabka qabsado waxaa loo baahan yahay wiira Aamir Khan inay u wada midoobaan oo ay sidii isaga saari lahaayeen go'aan ku qaataan markaasi ayuu xal ka imanayaa kadibna laga gudbi karaa biyo la'aanta gobolka haysata Maharashtra. Isagoo hadalkiisii wata waxa uu sheegay haddii aynu rabno buu yiri in aynu ka baxno waxaa la rabaa si wada jira inaynu gacmaha isu qabsano oo aan noqono dad aad u tiro badan dadka ay dhibaatada biyo la'aanta haysatana waa in ay kulligood soo wada baxaan kaliya ma ahan buu yiri inay hal qaybi cabato oo ay 24 saac u taagan tahay ka hadalka biyeerida haysata gobolka Maharashtra. Aamir Khan waxa uu sidoo kale sheegay wuxuu yiri waxyaabo badan oo aynu isticmaalna ayaa la inaga doonaya inaynu joojino maxaa ka mid ah tusaale ahaan ayuu soo qaatay TV-yada taleefanada aalada badan oo maanta dunida ku soo kordhay ayaa loo baahan inaynu joojino biyo la'aantan haddii aynu ka gaashaaman buu yiri waxaynu noqon doonaa dad dayacay mas'uuliyadda markaas shacabkooda ka saarnayd. Aamir Khan dhibaato aad u weyn ayuu u arkaa biyeerida gobolka Maharashtra iyo dhammaan gudaha dalkaasi India ee shacabka reer India markay tir ahaan noqoto waa 1 bilyan iyo 325 bilyan ayaa lagu qiyaasaa tirkoob lagu sameeyay sanadkii 2016 dabayaaqadiisii waana dalka labaad ee ugu badan dunida ee China oo kaliya ayaa ka tira badan xagga cadadka dadka ku nool. Haddaba India biyeerida noocaas iyo tirada intaas leeg waxaan iskeeni karin ayuu ku tilmaamay Aamir Khan waxaana uu sheegay in tilaabo degdeg la qaado. Dhanka kale isagoo oo ka hadlayay eedeymaha dadka ay u soo jeediyaan dowladda iyo gobolka Maharashtra gaar ahaan waxa uu yiri aad ayay u fududahay in dowladda la eedeeyo dowladda Maharashtra waxaan dhihi karaa iyo gobolkanba si wanaagsan ayay nolol shaqeeyeen wax walbana sidii loogu talagalay ayay u qabteen ee doorka la yahay waa doorka shacabka oo garab istaagi lahaa dowladda waxna la qaban lahaa ayuu yiri kaliya maahan inaad inta saxaafadda fariisata dowladda aflaga adeeso aniga ahaan waan hubaa buu yiri dadaal dheeri ayaa la muujiyay intii karaankeedana waa ay qabatay maalin kasta saxaafadda ayay dadka qaarkood la hadlaan iyaga oo raba dowladdu inay soo jawaabto dowladdu maxay ku jawaabtaa buu yiri waa maya wixii ay qaban kartay karaankeeda waa ay qabatay inta dhiman inaan anaga dhamaystirno ayaa la inaga doonaya. Aamir Khan waxa uu leeyahay organization la magac baxay Bani Foundation oo biyaha u ololeeya waxaana uu jecel yahay markasta in ay noqdaan dadka reer India dad isku duuban oo dhaqaalahooda iyo dadka ku nool ay yihiin dad isku balansiya oo isku dheelitiran waxaana uu Aamir Khan markasta ku celceliyaa dadka fuqarada ayaa gudaha dalkaasi India ku badan waxaana sabab ah buu yiri inta wax haysata oo aanan diyaar u ahayn inay inta kala garab qabato. Dadka qaarkiis hadalkan waxay u arkeen in uu siyaasadda ku soo galayay Aamir Khan iyo sameynta uu sameystay ururkan ama organization-kan NGO-gan la baxay Bani Foundation balse oo ugu soo kabanay balse Aamir Khan warkiisa waa uu cadeeyay waxaana uu sheegay siyaasadda inuu wax dana ka lahayn haddii ay noqoto dadkan inuu wax u qabto ama wax u soo jeediyana dhanka filimada ayaan ugu soo jeedin doonaa ayuu Aamir Khan hadalkiisa ku soo gabagabeeyay. Daawadayaal inta ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynay halkaad barnaamijka ka daawanayseen waa saxafi films oo alabaad ka dhaataan barnaamijyada ugu xiisaha badan arrimaha Bollywoodka. Haddaba haddaadan hore uga mid ahayn baahda ku xiran saxafi ugu horreyn barnaamijkana daawanaysa like sar kadibna subscribe saxafi films taaba gambalelka si barnaamijyada ka baxa saxafi ay joogto kuugu noqdaan. Fikirka aad qabtidna waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta comments-ka isla saxafi films inagoo isku duubana baahda saxafina dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.